الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamayaa dhammaan gudiyada kala duwan ee doorashooyinka haday ahaan leedahay heer federaal fiid haday ahaan leedahay heer goboleed ee siid iyo gudiga xalinta khilaafaadka ama conflict resolution ka teamka ah dhamaantiin marka hore waan salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan in aan uga bogaadiyo hambaliyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labada goobood oo bilaabay saddexda goobood oo teamka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan oo loo xiriirin yahay dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxa mas'uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horeey ka dhiman doorashada bilaabideeda saal la socotaan cabashaa soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alla idinku dhaariyay inaad hawsha doorashada aad u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daafurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay gudiyada lumiyeen madax banaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo gudigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin gudiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaa idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra'iisul wasaaraha ku soo baxdeen horta dhagtiina taas u furo marka ha luminina marka loo idin kugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii idinku qabay sababtoo ah doorasho hadaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wada shaqeyn la'aanta iyo kala dambeyn la'aanta gudiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wada shaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacbiga waxaa si toosa uga mas-uulah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa kaliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedyada ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa kaliya ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo kaliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uul ah saa darteed la socda guddi madax banaanatiin cid idin maamusho oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogteyn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhagtiina fura ree siidow ama ree dowlad goboleed gudiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garowge in kuraasta nambarkeeda la dejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose la soo dejiyo markii la soo dejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruudaas ah inay hubiyaan in shuruudaha la soo buuxiyey haddaana la soo buuxinna doorashadaas aqbal ma ahan dhagihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dhahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadka ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyana waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan
guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan, waana in ay warbixin joogtaa u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko. guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga, wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga, iisoo gudbiya, cid idinku xadgudbi karta ma lahan. guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeys inaan u sheego halkan. guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan, xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo, waxa la soo gudbiyo, waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan. sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey, waa laidin aaminay, waa idin dhaariyey, haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliyeed idin fiirsanayo. sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan, waa idiin sheegayaa, ergaa la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah. doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya. maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada. marka dhagihiina fura, maanta arintaas meel xasaasiya maraysa. qofkaana gudul warningkii ugu dambeeyey waaye, warningkii ugu dambeeyey aan siinayo waaye. qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaloo ka dhinac hadlaayo, warqadeeda hore ha usoo qaadato, ma matasho. taasaa idin sheegaya, dekareeto xafiis ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen. shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanayo, xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufanaan la-aan inay doorashada isku dhacdo. waa mahadsantihiin.